بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو عن ترسيد حسين وحن كوكو سلوبينيا حرونتا بافو وحان هيسانا ألابا كلا دونو اللي إيبيي إي وليبا لعاقي اللي إيبيي هديان كبلاو موبايلكو ugu horeeya Nokia mar badan ayuu soo laabanaya waxaan rabnaa inaan Nokia hal mar aan soo qaadno inta aan soo dhigno kadibna aan isku soo geeyno lacagihiisa sidaas la mid ah Samsung waxaan rabnaa bacdama uu soo laabanayo mar badan inaan hal mar soo qaadno kadibna lacagihiisa isku geeyno iPhone-kana sidaas inaan ku sameeyno waxaan ku tusayaa laba qaab wuxuu noqonayaa barnaamijkan Excel ka caadiga kombiyuutarka noogu jira marka isticmaalaysid qaabka u xalin lahayd iyo waliba nidaamka cusub ee Excel ka hadda loo guurayo qaabkii loogu sameeyay lahay bal marka hore waxaan u baahanahay in mobiladan magacyadooda soo laabanaya inaan hal magac aan soo qabto waxaan imaanayaa godkan waxaan isticmaalayaa function hawshaas qabanayo oo loo yaqaan unique marka equal ayaan leeyahay uniq markaan qoro automatically function kan ayaan soo qaadanaya wuxuu ku leeyahay wuxuu soo celinayaa godadka u sheegtay magacyada ku qoran ayuu hal ka soo qaadanaya tab ayaan leeyahay si aan calooshiisa u furo waxaan soo gelinayaa godadka aan rabo in magacyada soo laabanaya hal magac laga soo qaado bisha ayaan xirayaa enter ayaan taabanaya wuxuu sameynayaa Nokia mar badan ayuu soo laabanaya hal ayuu ka soo qaadaya Samsung sidoo kale iPhone sidoo kale bal waxaan rabnaa inaan isku geynti aan sameeyno annaga oo isticmaalayna criteria-da meeshan inoogu diyaarsan function-ka sum iskama isticmaali kartid sum wuxuu sameynayaa dhammaan iibkan la sameeyay inuu isku wada geeyo laakiin aniga waxaan rabaa Nokia iibkii la sameeyay si gaar ah u helo Samsung sidoo kale iPhone sidoo kale haddii isticmaalaysid Excel kan caadiga kombiyuutarada noogu jiro waxa ay noqonaysaa nidaamkan hadda aan ku tusayo inaad isticmaashid equal ayaan bilaabaynaa inta wax ka dambeeya function waxaan isticmaalaynaa loo yaqaano sum if amba sum ifs بعدما هل شرطي أن واتو sum if ويقول فلان تاينا استعماله تابعاً ليهاي وحكا كوني هاي function كان سيدح قيبات قيبتو غوري وحوبا هي range كدبنا كريتيريا يكو حيقايو كدبنا sum range كريتيريا وحي نقونيسا شروط ميشا نوغيا لو سيدح نوعي موبيلو range وحي نقونيا تيبل كميشا وغيا لو مركو حنكبلا بينا موبيلا دي ميشا تيبل كو وغيا لو بعدما ربا فورمولا هوسنا كوبيو قيبتان oo dhan waa ina xira hadaan xirin formula markaan koobiyana waxa bilaabanayso inay qaybtan iga daba socoto sidoo marka taas u dhicin F4 ayaan taabanaya keyboardkayga comma ayaan leeyahay waxa inagu xiga criteria-da waxaan ka bilaabayaa alaabta ugu horeyso oo ah Nokia formulada hoosina koobiya raba dabcan hoos marka imaano waa inuu Nokia iska bedela Samsung oo imaada marka iska fasaxaya kadibna iPhone comma ayaan leeyahay waxa inagu xiga sum range wuxuu noqonayaa godadka isku geynta laga sameeyay waa saleskeena ayuu noqonayaa inta wax ka dambeeya waxaan ku qasbanaa F4 inaan taabto oo jiha walba aan ka xiro si hadhow formulada hoos marka koobiyana qaybtan aysan hoos u dhaqaaqin inta wax ka dambeeya bisha ayaa xiraya kadibna waxaan taabanayaa control enter si aan formulada godka u geliyo isla markaasna uu istaago qaybta hoose godka imaanaya markii ay muuskaygu isku bedelo plus oo ah inaan koobiye karo amba fil handle-kayga waa qabanaya hoos ayaan u jeedaya godka ugu dambeeya laba jeer ku jinaya si aan u hubiyo formulada inay si sax u shaqeynayso iyo in kale formula xadreemaysa si sax inuu shaqeynayso labadan range wax dhaqaaqa ma jiro laakiin criteria-da hoos ayay u dhaqaaqaysaa Nokia kale 788 Nokia markaan iyo waliba labadan mar intaas markii la isku soo wada geeyo 788 ay noqonaysaa Samsung wuxuu sameynayaa sidaas la mid ah iPhone wuxuu sameynayaa sidaas la mid ah marka laba jeer hadii aan gujiyo waxa dhacaya waxay tahay function kan sum wuxuu ka kooban yahay laba lakab sum iyo if waxay sameynaysaa kala meeristi Nokia ay qaadaysaa meeshan ay ka raadinaysaa war adiga Nokia ma tahay true hadoo noqdo lacagtiisa ayaa la soo qaadaya function kan sum calooshiisa lagu soo ridaya war adiga Nokia ma tahay maya waa laga boodaya lacagta Nokia maya kan Nokia ayuu noqonayaa lacagtiisa waa la soo qaadaya sidaas la mid ah Nokia 288 waa la soo qaadaya marka ifta wuxuu sameynayaa in Nokia oo ka sooco Samsung iyo iPhone lacagaheeda ayaa la soo qaadaya function-ka sum calooshiisa ayaa lagu soo ridaya sum hawshiisa waxay noqonaysaa inuu lacag isku soo geeyo kadibna Nokia sidaas wadartiisa ay ku soo baxdo markii Samsung la imaado dabcan criteria-da hoos ayay soo deganaysaa bacdama aan soo fasaxay wuxuu fiirinayaa marka hore qaybtan items-ka ku qoran yahay wuxuu ka soo saarayaa oo ka soo soocaya wixii Samsung kadib lacagiisa ayuu soo qaadaya function-ka sum calooshiisa ayay ku soo dhacaysaa kadib isku geynta ayuu sameeyaa habkan waa habka caadiga ee Excel-ka kombiyuutarada noogu jira marka isticmaalayna waxaan ku qasbanahay markastaba range-ga inaan xirno anagoo isticmaalayna F4 haddaba
nidaamkan cusub ee barnaamijka Excelka uu guurayo ayaan rabaa inaan ku tuso bal marka hore waxaan soo qabsanaynaa magacyadan hal mar ayaan kasoo qaadanaynaa isla nidaamka hadda isticmaalaynaa functionka unique equal ayaan leeyahay unique ayaan soo qabanayaa tab ayaan taabanayaa waxaan u baahanahay inaan u sheego godadka magacyada soo laabanayo si uu hal magac uga soo qaado godka ugu horeeya hal mar gujinaya si aan markay ilaa hoos aan u maado marka qaarkood waxa laga yaabaa liiskiina uu aad u dheer yahay boqolaal alaab ay ku jirto control shift falaarta hoos ayaan taabanayaa si oo ilaa hoos oo soo doorto bisha ayaan xirayaa enter ayaan leeyahay meeshaas waxa ka soo baxayso alaabihii oo hal magac oo unique la soo qabtay inta wax ka dambeeya waxaan bilaabaynaa marka isla function hadda inaan isticmaalno laakiin qaab kale ayaan u gelinaynaa equal ayaan leeyahay functionka sum if ayaan isticmaalaynaa tab ayaan leeyahay waxaan soo qabanayaa range-ga wuxuu noqonayaa alaabihii meeshan ku yaala f4 ma taabanaya waa ka soconaya comma ayaan taabanaya waxaan u baahanaa inaan soo qabano criteria meeshii hadaaye hal god aan soo qabanayay saddexda god ayaan soo gelinaya meesha markii isbedel yar ayaa jiraayo waxa uu ka bilaabayaa godka ugu horeeya f9 ilaa wuxuu geynayaa godka ugu hooseeya calaamadan yar hashtagga waxa loo yaqaanaa spill range wuxuu sameynayaa hadhow inuu daadiyo hadii la yiraahdo comma ayaan taabanaya waxaan u baahanahay sum range wuxuu noqonayaa godadkan isku geynta laga sameynayo haba yaraatee wax f4 aan taabanayo mana xiray inta wax ka dambeeya bisha ayaan xiraya kadibna enter ayaan taabanaya automatically wuxuu sameynayaa in uu jawaabtii uu soo saaro haddaa fiirisid qaabkii hore aan u isticmaalay jawaabtii soo bixaysa iyo qaabkan isku jawaab ayuu noqonayaa nidaamkan waxaa loo yaqaanaa spill range array godka ugu horeeya ayay formulada ku jirtaa godka ku xiga haddaa fiirisid haba yaraatee formulada waxaad dareemaysaa inaysan ku nooleen godka hore oo keliya ayay formulada ku nooshahay nidaamka hore aan isticmaalayna god kasta haddaa fiirisid formulada way ku jirtaa way ku nooshahay taas waxay noqonaysaa marka waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin qaabkii hore markaan sameynayay waxaan ku qasbanaa rangeyadan inaan xiro f4 aan taabto skip ayaan leeyahay qaabkan cusub haba yaraatee wax f4 aan u baahanayay haba yaraatee ma jirto automatically waxaan sameynayaa criteria markii isticmaalaya saddexda god ayaan si toos soo wada gelinayaa wuxuu sameynayaa marka inuu si toos oo u xisaabiyo asoonan u baahneen in rangeyada loo xiro jawaabta hore ayay kusoo tuurayaan habkan waa habkii hore habkan wuxuu noqonayaa habka cusub barnaamijka Excelka cusubna waa habka uu guurooyo hadii la yiraahdo waxaan rajeynayaa inaad videogan aad uga heshay oo noo la garanaysaa asxaabtaadana oo share garanaysaa haddii xaruntaan ugu maanaysid xarunta waxay ku taala suuq bakar masaajkan Abu Hurayra agtiis dabaq ku yaala loo yaqaan Bacda Balasa biyaanada labaad ayaan deganahay amba nambarka shaashada hortaada ka muuqdo ayaa naga soo wacaysa si aan tilmaam aan ku siino haddii xamar aadan joogin oo xaruntaadna u imaan karin waxaa jira nidaam online kursooyinkan ku bixino waxaa la soo xiriiraysaa nambarka shaashada hortaada ka muuqdo whatsappkiisa si aan warbixin kugu soo dirno haddii aad ku qanacdina qaabka online-ka u bilowdid aad iyo aad u mahadsantahay